بسم الله الرحمن الرحيم kusoo dhawaada xalqadii aan u ballansaneen barnaamijkii challenge-gii fikradii buug July aan kusoo akrinay waxay ahayd bisha bilowgeeda ama maalinta ugu horeysa inaan soo gudbino hadduu ilaa yidhaahdo laakiin dee ciiddii baa inaga soo gashay saas waxoogaa dib inooga dhacay maanta waxaa inoo martiya oo barnaamijka fikradii buug markii ugu horeysay marti ku ah 5 dhalinyaro oo muthaqafiin ah oo runtii qoraaladooda dad badan baa qoraalada soo wadaagay waan wada akhriyey waxaan u malaynayaa in ka badan 80 samri baan ama dhegaystay ama aan akhriyey dadkii nala soo wadaagay waa intii aan ka gaari karayey markaa kuwa badanoo waxaa jiray lagu soo diray emailka anigu waxaan codsaday in lagu soo diro facebooka waxaan xooga saaray uun intii lagu soo diray facebook intii lagu soo diray baan xooga saaray instagramka halkaasaana ka soo xushay marka 60 muthaqafa inala jooga maanta waa dad runtii aan aad ugu bogay siday usoo koobeen buugtii aynu challenge ku galnay marka insha Allah qolihiina qoraaladooda wanaagsanayeen aan ka helay aan u mahad celiyey waad sogtihiin buugta dambe iyo challenge-ga dambe insha Allah aynu geli doono ayaan rajeynaya inaad ka mid noqotaan dadkan barnaamijka ka qayb qaadan doona farxad bay tahay inaan intiinaba aad barnaamijkaygula jirtaan maanta aad igala qayb qaadanaysaan runtii aadna waan idinkaga mahad celinayaa dadaalka faraha badan aad geliseen akhrinta iyo soo koobidaba poll aan sameeyey pagekayga ku sameeyey ilaa 700 oo qof baa codeeyey waa aad baan ugu farxay dhinacna uga murugooday markii aan arkay ilaa 60% in ka badan oo dada ay leeyihiin markiina ugu horeysay weeye oon buug akhrino waa buugina ugu horeeyey marka dhinaca waa farxad dhinacana waxaad dareemaysaa baahida bulshadeena taalla 30 iyo dhowr ka mida ayaa horey buug u akhriyo barnaamijkan ama challenge-gan uu ahaa buuggii labaad ama buuggii saddexaad uu ahaa in badan oo ka midana 90%na waxa weeye waa dad weli aan summary samaynin marka keliya inaad akhrisid ma inaad summary samaysid xataa nafteena anfacaad noo leedahay ay tahay inaan dee waa waxa kuu fududeynaya inaad si fiican oo cumqi aad u dhex gasho buuggii aad soo diyaarinaysay ama buuggii aad akhriyeysay marka waa mid ka mid ah siyaabaha ugu wanaagsan ee note taking-ka loo qaato insha Allah soo dhawaada su'aalo dhowraan idin weydiinay intaanan barnaamijkaynan u guda gelin su'aal baan ka hormarinayaa aan rabo dhammaantiin inaan idin weydiiyo oo habal wax xoogaa isaga kaaya sheeg warsamo waa kuma xaguu ku nool yahay litacriif insha Allah magacayga waxa la yiraahdaa warsame bade xasan waxaan ku magac dheerahay warsame dado waxaan ku noolahay dalka Belgium qaybta Yurub galbeedka Yurub waxaan deganahay muddo 5 sano waxaan caadi ahaan ka yimid deegaanadeena Soomaaliyeed ee magaalada Boorama weligay waxaan ahaan jiray arday laakiin secondary school baan ayaa ardaynimay ugu dambeysay I think for 4 baan ayaan kaga baxay xagga iyo shaqo iyo hawl adduunyo baan ayaan yeelan jiray muddo laga joogay imika 3 sano I think inay tahay baan malaynayaa ayaan barnaamijka fikradii buug soo biiray waxaan daawaday I think waxaan malaynayaa dhowr iyo 30 buug inay ku jiraan dhowr iyo 30 buug meesha ku jirayna min 5 jeer daawaday kan u yarahay oo haddana waqti helo inta badan dhageysan jiray sidaan u dhageysan jiray baan jeclaaday oo jeclaystay inaan Allah musta'aan bal akhriyo buugtan aan dhageysanay buuggii ugu horeeyay aan akhriyay waxaan malaynayaa inuu xagga sare ka muuqdo hishdad buuha buuggan aan maanta soo koobaynana Who Moved My Cheese ayuu ahaa buuggii labaad aan akhriyay imikana ilaa 60 buug iyo dadka codka dhageysiga wax badan ku fahmana waan ahay imika buugtan akhriyay ilaa 60 buug bay gaaraysaa intan dhageystayna waxay gaaraysaa ilaa 100 buug xataa kaliya tama inaan akhrista noqday laakiin inaan noqday qof Allah musta'aan noloshiisa oo dhan u horeeyay inuu noqdo ama diirada ugu horeysa saaray inuu qof wax akhriyo noqdo
hadday noqoto jawaanibta kala duwan arrin mucjisaa dhacday markaan akhriska bilaabay horta anu luuqadeeda ingiriiska kuma fiicnayn laakiin waan fahmi jiray almost sidii baan ku bilaabay allahu mustacaan akhriskii ku waday maanta wax kastoon akhriyo waan fahmaa wax kastoon dhegeysto waan fahmaa 100% ama 99 baan odhan karaa run ahaantii hal talo ama hal fikrad oo keliya toon walaalkii mubaarak ka helay oo ahayd akhrisku inuu noloshaada bedelayo hadday cuntada noqoto hadday dhaqaalahayga noqoto hadday xiriirka aan dadka la leeyahay iyo taan familkayga la leeyahayba hadday noqoto waxaasoo dhan way iswada bedeleen iska daa in isbedeleen inaan allahu mustacaan maalin kasta korayo oon kobcayo ayay allahu mustacaan badan marka mubaarak aad iyo aad baan kaaga mahad celinayaa mar kasta iyo mar kasta walaahida inaan allahu mustacaan taladaada iyo tusaalahaagii iyo fikraddii aan ka helay inaan akhrisku yahay qofka waxa noloshiisa dhinaca ka wajeeda weligay waxba ma akhrin familkayguna akhriska kuma fiicnin xataa dugsiga kuma fiicnay baan odhan karaa oo marka wallahi imika aad iyo aad bay noloshayda isku bedeshay aad baad u mahadsantahay farxad bay noo tahay farxad bay runtii noo tahay aad baad u mahadsantahay barnaamijka wuxuuna ku bilaabayna waxa weeye mustaqbal qurux badan baa ka horeeya insha allah duniya soo dhow walaal waa dhawaa ustaadi aad aa mahadsan tahay magacayga waa duniya xuseen maxamed waxaan ku noolahay magaalada muqdisho waxaan ka mid ahay ardayda dhigata jaamacadda simad last yearka kulliyadda dhaqaalaha dabcan in badan waan kula socda laakiin hal cuduraa qabaa exactly maalintii aad ma sheegi karo laakiin soo geliso bartaada youtubekan badanaa kaala socda jira facebooka kuguma aqoon laakiin youtubekan aad kaala socday maasha allah so buwaag badan waan dhageystay alxamdulilah oo noloshayda dabcan wax badan ka bedelay xaqiiqatan inuu ahaa umaleynayo midka igu farxadda badnaa midka ahaa eat that frog ineeda umaleynayo buugaasaan aad u jeclaaday dabcan hadda wuu iigu jiraa listiga kuwa inaan akhriyaan rabo soomaali haddaan ahana dabcan waxaan nahay dad oral ah oo badana anigu waxaan jeclahay inaan markaan howl qabanayo ama wax qabanayo iska dhegeysto aada ii saaciday xaqiiqatan nolol badan aniga keligay dhalinyaro badana badashana way jiraan marka jazakallahu khayr aljaza insha allah barakallahu fiik dhegeysigu waa qayb ka mid ah akhriska marka waa fursad aad u wanaagsan weeyaan in laga faa'iidaysto qofka inuu dhegeysto aad baad u mahadsan tahay duniya cabdiraxmaan codka ma ku hagaagay asalaamu calaykum hadda ma la maqlaa si wacan baa lagu maqlaa soo dhawow su-aashu waxay ahayd waxa nooga sheeg cabdiraxmaan sidoo kalena barnaamijka fikradii buug ma ku taxan tahay haddaad ka mid tahay dadka ku taxan kormaad kusoo biirtay awalan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaantiin aad baan idin salaamayaa cafwan xoogaa yara technical inuu bahaystay marka ugu horeysa magacaygu waa cabdiraxmaan daahir cabdullaahi waxaan joogaa turki istanbul xaqiiqatan barnaamijka mubaarak aniga waxaan ahaa asxaabtii marka hore facebooka u badnaayo xaggaasa markii u horreysay aan ka arkay markii dambena youtubekiisaan kusoo biiray marar badan waan dhageystay dhanka akhriska markii la yiraahdo xaqiiqatan buugaas barnaamijkaas dhiirigelin fara badan buu ii sameeyey oo marka hore buug intaan iska bilaabay haddana markaan ku caajisay isku joojin jiray waxaan ahaa dadka kolba buug bilaaba oon exactly buug rasmiya dhammaynin akhiiran alxamdulilah barnaamijkaas ustaadka aad baan kaaga mahad celinayna wax badan buu iga saaciday anu dadka waxaan ahay akhriska buugta weliba nahaar kobiga aad u jecel kuna raaxaysta inaan kuwa akhriyo inkastoo hadda adduunka electronic noqdo xagga pdf-ka u batay haddana dabcan wixii asxaabta akhriska waan ahay haddii aan personal kayga aan dib ugu noqdo aniga kulleeto dhulka Soomaaliyeed qayb ka mid ah kasoo jeedaa reejigaan ahay Soomaali galbeed baan ka imaaday xaggan hadda heerkii labaad ee jaamacadda ayaan ku diyaariyaa qaybta siyaasadda
sharaf ii tahay dhammaantiin inaan meeshan ku kulanno bahda akhriska aadna waa idin salaamaya aad baad u mahadsantahay cabdiraxmaan ilaahi subxana watacaala waxbarashada aad ku jirto iyo deegaanka cusub aad joogtana ilaahi subxana watacaala kugu xifdiyo soo dhawow ustaad cabdifataax salaamullaahi calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan filayaa in si fiican lay maqlo magacaygu waa cabdilfataax xasan nuur jooga muxuu ahaa magaala madaxda khartuum ee dalka suudaan maasha allah waxaan wax ka bartaa mid ka mid a jaamacadaha waxaan dhigtaa cilmiga korontada halka ustaadkan muxuu ahaa aan gorfeynno kitaabkiisa maanta mufakirka malik nebi waan ka simannahay muxuu ahaa isaguna ku takhasusay cilmiga korontada ustaad aad baan kaaga mahadnaqayaa barnaamijkaagan insha allah waxaan rajaynayaa inaanu dee bishan iyo bisha kasii dambaysaba aanu noqon hore usii socdo dhalinyar badanoo muxuu ahaa aan akhriska aanan ku fiicnayn qaar kalena ay wax akhriyi jireen laakiin aanay lahayn aado wax akhris inay ka faa'iideen taana aad baad ugu mahadsan tahay mahad ballaaran baan kaaga haynaa halkaana noogu sii wad barnaamijkaagan fikrad iyo buug horta anigu si fiican uma daawan jirin waxaan filayaa dhowr kutub inaan kaa daalacday sanadan bilaabay waxaan filayaa inay ahayd 2019 maasha allah ma daawan jirin iska arday jacaadin ahaa iska mashquulkii ahaa kutubta waxaan akhriyi jirnay iyagoo muxuu ahaa iyagoo heedeh youtube iyo xaarna iskuma fiicnino waa sababahaasaa keenay inaan muxuu ahaa aduu dhulkii aqoontii iyo fikirkaad joogtaa marka iska mashquul badan oo magaranaysanaysa ayaan ku daawan weyn maasha allah intaasaan kaga baxay insha allah aad baad umahadsantahay ilaah subxana watacaala meeshaad joogtaa kugu ammaansado barnaamijka laftigiisa hadda iska sababtigiisu ma ahayn barnaamij joogta u jooga mararka qaarkood 7 bilood 8 bilood baa dhici karaysa inaanan soo gelin mashquul darteed marka aad baad umahadsan tahay waxaynoo dhiman miski soo dhawow iyo yaasiin miski soo dhawow استاذ السلام عليكم دمان والسلام يا ولاalaha meesha ku jiro iyo macallin mubaarak magacaygu waa miska cabdinuur salal waxaan ku noolahay magaalada muqdisho waxaana kamid ahay macallimiinta wax ka barta ardayda wax ka bar macallimiinta muqdisho ku nool aan kamid ahay sidoo kale waxaan kamid ahay qorayaasha Soomaaliyeed maasha allah fikradii buug waxaan ku soo biiray 2018 xaqiiqdii inta ku guda jiray buugtaas intaas ama dalacaynay macallin mubaarak waxyaalo badan aan ka faa'iiday oo nolosheeda waxyaalo badan baa iska bedelay buug kasta waxaa laga yaabaa buugta qaar xataa 3 jeer ka badan inaan dhageystay xiisaan u qabo darteed marka qaar xataa anoo akhriyay ina haddana mar labaad aan ku cishanayo oo fikrado hore la iga baxayeen maasha allah aad baad u mahadsantahay aad baa u mahadsantahay macallin wax badan baa naga saaciday aad baad u mahadsantahay waa abaal isku leeyahay taa yaasiin soo dhawow waan dhawahay ustaad aad baan ugu faraxsanahay inaan qayb ka ahaado barnaamijka fikrad iyo buug waxaan maqli jirnay fikrad iyo buug oo youtube-ka kaada maantana zoom buu soo istaagay waa lama hadii ani ugu horeyn youtube channelkaaga waxaan arkay 2018 xilligaas baan aad ugu xidhnaan jiray wixii ka dambeeyey xaggan anigu jijigan joogaa jijigana khadka iska xun xagga kolka meelaha internet kafiyada markaan tago waxaan xasuusan jiray inaan fiidiyowadaada intaan download garaysto aan sida fikradda buuga kale aan buwaagta xataa qaar waxaa jira aan adiga aan kugu bartay sida eat.org kamid ah kan hadda how sida ay u fikiraan dadka hodanka iyo xataa kuwa movementiska iyo kuwo kaloo badan oo adiga dartaa kugu bartay oon kadib akhriyay baa jirta intaa kasta kow anagu jijigaan nahay urur la dhaho naadiga cusub aanu ka tirsanahay oo u ololeeya arrimaha akhriska hadda muddo 2 sano baan ka tirsanahay 2019 iyo sanadkan 2 sanad iyo waxa arrimahaas anagu waxaan ka shaqeynaa arrimaha akhriska iyo qoraalka taasoo nagu sii dhiirigelisa inaan waxna akhrino iyo idinka oo dee naga waaweyn oo na tusaaleeya oo taliya tusaalena siiya waxaan insha allah qorana waa tahay dee sooma
ya muqdishona la isku arag barnaamij aan isku aragnay masha allah masha allah aad baad u mahadsantahay aad baad ku salaamaya adigii reer jigjigaba farxad bay tahay magaalooyinkii weynaa in badan oo kamid ah aad ka socotaan aad ka joogtaan insha allah waa sii gudagelaynaa hadda hadduu ilaa yidhaahdo barnaamijka sii gudagelaynaa waxaan isku dayanaa inaan soo yaro koobno 40 daqiiqo 50 daqiiqo saa dadku aynu nagu caajisin hadduu ilaa yidhaahdo si degdega horay book summary ma u samaysay makan baa kugu horreeyey mise horaad book summary u samaysay processkiisiina nooga waran book summary-ga iyo soo koobid iyo khulaasaynta buugga saad processki intaad ku guda jirtay ma hawl fudud ba ma hawl soo dhawaad insha allah adigoo ku hormar yaasin aniga maan ku horey hore book summary hadduu video yahay hadduu qoraal yahay ma u samays horta anaga haddana qaybta video sameynaya maanan gaarin laakiin waxaa jirtay magaranaysaayay yani bugaag horoon anigu aan summary ka sameeyey baa jirta bugaagu suldaan nayrus leeyahay qoraageena soomaaliyeed oo 2 kamida oo aan ka sameeyey baa jirta bugaag kaloo intiisoo iyagana ka yarta sameeyey baa jirta adigu markii iigu horeysa maaha ee kuwa horan ka sameeyey baa jirta kolka yara experience inaan u yara leeyahay muddo adig دينا كاين ما شاء الله ما شاء الله عاد افتح استاذي اسمع سبينا نوها سو كوفيد كتبت امام الخاصين اور كتبه هره سؤال فاهم سؤال سبوتك دمينو يسالك سو marka muxuu ahaa badan wax badan ay ku carabi marka hal tibinayso luqad kale oo iska adkaanaysa ogaa kuma badniha aan soo koobaa kutubta aad u maasanta dunya ani ahaanka dunya ahaan markii igu horeysay dabcan aan ku dheeraad inaan video doobo masha allah waana cabsi badan oo iska jirta laakiin haddana alxamdulillah bacda fadlillah yani videoyga markaan daawado cabsi kama muuqan xoogaa daaqilkay ka jirtay laakiin marka qaar voice-ka kaa dhex hadla inaad shut up ku dhahdo iska fiican tahay marka alxamdulillah aad aamusiisa dheh aad iyo aad u mahadsantahay miski ustaad ani buwaag waa kasoo sameeyey laakiin qoraal ahaan ugu sameeyey horeyna video la u sameeyey laakiin video oo ka hadlaya book aan soo koobay buugana igu horeeyay laakiin hore waxaa jirta inaan sameeyey buwaag badan oo akhriyay in aan qoraal ahaan ugu soo gudbiyo bulshada masha allah videoyga cusubna oo ku hambaliyana aad buu wanaagsanaa cabdifataax baan markaan cabdifataax la wadaagayay baan ku yidhi adigiyo miski baad markaasuu yidhi miski u daa buugga iyadoo soo ka hadashay marka waxaan ku yidhi labadiina waa idiin baahanaa inaad barnaamij ka qayb qaadataan marka videoga aad buu u qurux badnaa cabdiraxmaan استاذي الحمد لله أنا مرة هوري حل جامعات نوان سمي بوقت بدنا ريفيو كي برا جامعات نوانا حل كان ودنا كذا شوي جامعة قبل جامعة يونيفرسيتي اللي هذا يعني معني كها الحمد لله لكن بوقت نوعنا مرة نقطة مرة كقار وحاجة qodobo aan kala dhicin oo ku adag tahay khulaasada inaad qaybna ka tagto qaybna aad waxyaalaha waxa weeye marka qaar yaad kaanaysa oo qofkii fahmaya oo dareemaya in arkaa ku dhacday marka hadda xirfadda anu qaybta siyaasadda maadaama ku jiro leadershipkan aad u taageera waan kaaga mahadcelinayaa inaan John Maxwell soo xushay xaqiiqatan buugaagtiisa hore waan akhriyay marka qaar technique ama qodobada looga baahan yahay in aad xulato way adkaanaysaa marka xaqiiqatan anoo fikrado badan yahay marka alxamdulillah inaan khulasadeedii laga helay oo aan ku guuleystay farxad bay tahay waana kaaga mahadcelinayaa ustaadi aad baad u mahadsantahay warsame su-aashu waxay ahayd baan filayaa buug hore samir ma kasoo sameysay sooma waa run waan kasoo sameeyey
waayo waxaan daawaday bay ahayd ama aan arkay wuxuun baad fahmaysaa baan video aad lahayd oo wuxuun baad fahmaysaa intaad aad ku mashquulsantahay inaad qof kale waxaan barto buuggii ugu horeeyeen rich dad poor dad markaan akhriyayba snapchat-kaygan summary kaga samayn jiray video yar oo kooban masha allah sanadkii hore markaa wallahi way hawsheedu way badan tahay laakiin intaas idhaahdo intaas baad ka fahantay ama intaas baa aan notice kaga qaatay intaasun baan allahu mustacaan la wadaagi jiray insha allah mustaqbalka dhowna insha allah buug kastoon akhriyo aduu bilda hadday noqoto iyo hadday wiigala noqoto saan ula wadaagi karayna la wadaagaan ku kala jira insha allah aad baad ugu mahadsantaha warsame barnaamijkiina ma si toosa marka iskaga guda gelaynaa inta sida su-aalo yar oo ka kooban ayay iska ahaayeen waraysigana kuma fiicne iyo daadixinta marka waxaan ahaanaysan wixii maaragtay khaladaada waxaan jeclahay inaan miskii u yeedho buuggii noogu horreeyey shuruud nahda u qoray mufakirkii weynaa reer jazaa'ir malik bin nabi inay fikrad guud inaga siiso kadibna waxaan u gudbi doonaa cabdifataax insha allah buugga nuxurkiisa iyo afkaarta ku jirta ina la wadaaga miskii soo dhawo insha allah buugga shuruudu nahda horta wuxuu ka hadlayaa bulsho sidee ku horumari kartaa bulsho walibana horta horumar way u baahan tahay bulshooyinka hadda caalamka horumaray oo kale mar waxay jireen xaaladooda aad u daranta oo aan laga sheekeyn karin waxyaaba marka buugta fikirka guud uu xambaarsan waxay ahayd fikirka ugu weyn uu xambaarsan waxay ahayd doorka fikirka diiniga uu ku leeyahay ilbaxnimada iyo horumarka badanaa hadda siyaasadda waxaa la dhahaa dimuqraadi marka bal wuxuu aad u falaqeeyey malik bin nabi fikirka diiniga door intee leeg uu ku leeyahay horumarka marka wuxuu aad uga hadlay waxyaalo fara badan uu ka hadlay taariikhda iyo wuxuu ka hadlay sidoo kale buug waxyaalaha uu ka hadlaya waxaa ka mid ah in mabaadi'da qur'aanka in lagu dhaqmo in lagu horumari karo oo bulshada dhibaatooyinkeeda ay xalin karaan waxyaalaha uu ka hadlay marka waxaa ka mid ahayd bulshada dadka insaanka oo kale ama xadaaradda oo kale xadaaradda wuxuu leeyahay waa insaanka oo lagu daray dadka oo lagu daray waqti iyo carada qof horumar kastoo la gaaro waxaa gaaro dadka ayaa gaaro waxayna ku gaaraan waqti ayay ku bixiyaan qof walba oo gaaro waqtigaasay ku bixinaana waxay ka dhacaan qayb ka mid ah dhulka waddan walbana markuu horumar waxaa la lahaa waddan hebel baa horumar laakiin lama dhaho dadkiisa lama sheego waxyaalaha uu ka hadlaa waxay ahayd aad wuxuu u falaqeynaya fikirka diiniga doorka uu ku leeyahay ilbaxnimada iyo diin dadka wuxuu aad u fahansiinaya marka waqtiga sida looga faa'iidaysan karo iyo ahmiyadda sida dhulka loo siin karo waxyaalahaas dhammaan ayuu ka hadlaya marka barnaamijka waxaa u daynaynaa cabdifataaxa noo soo koobaya fikradaha insha allah qoraaga wax ka yara dheh qoraagu waa kuba inagoo dadka la wadaagayna cabdifataaxna wuu ku dari doonaa insha allah qoraaga malik bin nabi waxa uu waxbarashadiisa kusoo qaatay dalka faransa waxbarashadiisa dugsiga hoose iyo dugsiga dhexe wuxuu kusoo qaatay faransa wuxuu ahaa mufakir aad uga fakeri jiray bulshada sidee ku horumari karta iyo sidoo kale wuxuu ahaa macalin oo ka mid ahaa macallimiinta jazaa'ir algeria soomaaliga waxaa lagu dhahaa algeria uu ka mid ahaa marka qoraagaas waxa uu aad uga hadli jiray oo isku shuqlin jiray bulshada sidee ku horumari karta weliba wuxuu toos uga hadli jiray fikradaha diinta ee uu ka hadli jiray aad mahadsanta casax soo dhawo fikradihii buugga ku jiray oo qoraagu inala wadaagay fikradaha ugu cudoon haddii aad qoraaga oo aad isku mihnadna tihiin wax ugu sii dari karaysan insha allah tafadal aad baad mahadsanta istaadi bismillah buuggan waxaa qoray say miski sheegtay mufakir ama caalim weyn oo malik bin nabi la yidhaa oo dalka aljazaa'ir kasoo jeeda ama algeria mufakirku waxa uu dhashay qarnigii 20aad waxbarashadiisii sare wuxuu kusoo qaatay dalka faransiiska kitaabkan waxa uu qoray sanadii markay ahayd 1946 jeeda
waxa la faafiyey ama kitaabkan la faafiyey 1949 kitaabkan nusqada koowaad wuxuu ku soo baxay Faransiis buu ahaa asligiisu kadib baa waxa loo turjumay sanadii markay ahayd 1957 luqadda carabiga waxaana u turjumay Abdi Sabuur nin la yiraahdo iyo Umar Kamil kitaabkan marka la sifeynayo waxa la yiraahdaa kitaab islaami ah oo ruuxi ah oo waadix ah mufakirku wuxuu isku taxalluujiyey inuu bixiyo fikrado aasaasi ah oo bulshada hadii ay la timaado ay ka xoroobayso muxuu ahaa gumeysiga sidoo kale qarnigii 20aad caalimku wuxuu ahaa waxa lagu tilmaamaa mufakirkii islaamiga ahaa ee carabta kuwii ugu cadcada fikriintii waaga joogtay qarniga 20aad waxa yimaad kitaabku wuxuu ka kooban yahay 160 bog laba baab ugu waaweyn oo kaga hadlayo tagtadii iyo timaadadii tagtadii iyo taaganta oo almaadi wal xaadir iyo mustaqbal labada baab ugu waaweyn marka ustaadku jaacada ku soo qaatay dalka Faransiiska wuxuuna ku dhigtay cilmiga korontada taasoo muxuu ahaa ku yeelatay aragtidiisii yahay door aad u weyn ku yeelatay casr marka qarniga 20aad oo qalam islaam garadkii muxuu ahaa aqoonyahanadii iyo dhalinyaradii oo kacay oo muxuu ahaa isweydiiyey dhibkan xagee ayuu nagaga habsaday ummadda xaguur naga habsaday isaga laftiisu isweydiinayaa sartu xagee ka quusan tahay salaadu xagee ka xidhnaadahay maxaa bulshada ku dhacay maxaa dib u dhigay maxaa keenay gumeysigan deedna fikrado aad u muhiim oo ilaa waqti xaadirkan muxuu ahaa in boardka laga jafo oo magaranaysa ummadaha lagu horumariyo loo baahan yahay ayaa kitaabkan ku buuxa fikradda koowaad su'aasha horta wuxuu sheegay su'aashan isweydiinayaan in bulshada maxaa keenay in la gumeysto wuxuu ku macnaynayaa in muxuu ahaa hadba qofkii la weydiiyaa takhasuska uu haystaa inuu muxuu ahaa uga jawaabi doono yani jawaabu kala duwanaan doonaan haddii laba qof oo kala takhasus duwan haddii la weydiiyo marka wuxuu ku tusaaleynayaa laba nin oo waagiisa joogay oo ninna siyaasi u ahaa ninna wadaad iyo waran leh marka Jamaaluddin al-Afghani oo siyaasi ahaa ayuu weydiinayaa markaas wuxuu sheegayaa in muxuu ahaa siyaasad xumo iyo dadkii waaga xilka hayay inay muxuu ahaa doorkoodii ay gabeen oo siyaasad xumo jirto ayuu ku macnaynayaa su'aasha haddii wadaadku yimaado Maxamed Abdulla wadaadna waxa uu leeyahay caqiidadii oo xumaatay iyo diintii oo laga leexday ayaa keentay in ay bulshadu dib u dhacdo isaga laftiisu marka halka dambe ayuu ku qaadanayaa ra'yiga muxuu ahaa wadaadka oo wuxuu leeyahay caqiidadii oo luntay ayaa muxuu ahaa keentay in bulshadu dib u dhacdo sidoo kale wuxuu sheegayaa wadaad mufakirka caalimka weyni fikrad ah dadku lama gumeysto ama wax kuma dhacaan ilaa iyagu ay qaabiliye keenaan ama qaabiliyo ay yeeshaan inay wixii ogolaadaan oo halkii Soomaalidu ka tiraahdana muxuu ahaa ishiisa laga arkaa ushiisa lagu tumaa yani wixii marka laga arkaa magaranaysa lagu marka wuxuu keenay fikradda ah qofku qaabiliyo markuu yeesho wixii ogolaado ayaa muxuu ahaa ay dib u dhacaysa axadul musallixiin dadka kuwa hagaajiya iyaguna halkaa ka soo qaatay aaraab ka soo qaatay kuwaytisa wuxuu leeyahay ka saara muxuu ahaa nafihiina mustacmarka gumeysiga horta nafihiina ka saara markaasuu dhulkiina ka bixi doonaa yani waa inaad gudaha ka soo bilowdaa uu leeyahay muxuu ahaa nahdada kor u kaca ama kacdoonka ama horumarka kitaabka san sheegay laba baab buu ka hadlayaa oo ah tagtadii iyo joogtada ama taaganta iyo mustaqbalka baabka koowaad wuxuu ku daraasiinayaa wuxuu baaris ku samaynayaa xanuunadan faafa ee bulshada ku dhacay xanuunkan bulshada haya ee ay muxuu ahaa isla horuddo baabka labaadna wuxuu ku sheegayaa daawooyinka looga baahan yahay qofkan muxuu ahaa buka ee xanuunadan laga helay marka xanuunadii baaris dheer cilmi dheer oo ku sameeyey taariikhdii hore iyo taagankan hadda la joogo ee mustacmarku joogo waxa uu soo baxday 3 fikradood oo inay bulshada ku dhacday uu arkay waa mushkilad fikri ah mid muxuu ahaa dhaqan iyo mid hogaamineed baabkan kusii xigay mustaqbal wuxuu sheegayaa marka waxyaabihii magarasa lagu daweyn lahaa qofkan buka marka laba dawo ayuu isleeyahay labadaas muxuu ahaa ugu muhiimsan haddii qofkan muxuu ahaa lagu daweeyo inuu kaga bixi karo muxuu ahaa dib u dhaca koowaad oo ah jihayn iyo toosin oo fikratu tawjiih oo ku macnay daawadan in muxuu ahaa la adkeeyo xiriirka bulshada oo dadka bulshadii la isku xidho in hadhow la cayinsado muxuu ahaa ama meel sare la yiraahdo halkaas aan hiigsanayna kadibna la isku wada raaco
oo aan muxuu ahaa la kala hadhin fikradda labaad oo ah muxuu ahaa jihayn iyo midhiftiridda dhaqanka oo tawjiih athaqaafa wuxuu ku micnaynayaa qodobkan in muxuu ahaa dadka laga tirtiro afkaarta bulshooyinku ay leeyihiin ee wax burburisa afkaar waxaa jirta muxuu ahaa afkaar taban iyo afkaar muxuu ahaa positive iyo maynisa afkaarta mayniska ee bulshada dib u dhigta in laga tirtiro bulshadii marka dowlad iyo muxuu ahaa wada noolaansho saldhig looga dhigo oo dadka ay wada noolaadaan markaas ay imanaysaa ilbaxnimadu marka afkaaro qurux badan oo aad iyo aad muxuu ahaa cajiiba ayaa kitaabkan ku jira afkaar kale haddaan ku daro waqti fiicnaan lahayd in waqti fiican loo helo barnaamijku waxaa fiicnaan lahayd inuu noqdo barnaamij hal buug uun maaragtay lagaga sheekeynayo laakiin 3 buug baan ka sheekeynaynaa marka waa hal fikradda aad tilmaantay bal ku dar taasaan kusoo gabagabeynaynaa fikrad kala tiri ku jirta qurux badan ayuu bugiisa ku qoray oo ah in marka hore ilbaaxnimada in muxuu ahaa ilbaaxnimada in asaas ay u tahay fikirka diiniga wuxuu sheegay saddex qaacido oo sheegay haddii saddexdaa la helo oo aasaas looga dhigo ama gundhig looga dhigo fikirka diiniga inay ummaddu ilbaaxnimo ay helayso ay hore u soconayso wax soo saar helayso sidii miski sheegtay waa dadka oo lagu daray maadada oo turaabka dhulkii dadku deganaayeen iyo waqtigii saddexdaas oo muxuu ahaa asaas ama la falgeliyo samaawiga ama fikirka diiniga ama waxyiga ayaa waxay keenaysaa inay dadku horumaraan ama xaggay taagan yihiin ay uga horumaraan intaas wada baxay insha allah may si qurux badan buugga dabcigiisa fikradaha aad u cajiiba oo aan laga dhex bixi karin mararka qaar marka kitaabka dhex gasho waad silaawaysaa waro weliba kutubkan wuxuu mudan yahay waqti ka badan waqtiga kutubta kale aynu akrinayno waa kutub fikriya marka baahi badanna aynu runtii u qabno aad iyo aad miski waxaad ku daraysa ma jirtaa intaanan u gudbin kutubta kale aad wax kugu soo dhacay fikrad aad ku dari lahayd waxaa ku dari lahaa waxyaalaha buuga iga soo jeedta waxaa ka mid ahayd maalik binu nebi dardaaran uu aabihiis siiyey aabihiis wuxuu ku yidhi aabba wiilkayga qur-aanka waxaad u akhrisaa sida adiga oo kugu soo degay walaa waa la yaaba markii aan akhrinayo cajiib bay la noqotay cajiib wuxuu farayaa tadabbur iyo tafakur inuu qur-aan ku fakaro ku tadabburo cajiib sidina kugu cusub tahay oo kale aad baad u mahadsantihiin cabdifataax iyo miski sida quruxda badan aad kitaabka fikriga aad inoogu soo koobteen fikrada fiican aad nooga siiseen aad baad u mahadsantihiin iminkan waxaan u wareegayaa kitaabkayna kale how successful people think oo qoray John Maxwell waxaan u dhiibayaa duniya si ay bal fikradda qoraaga iyo qoraaga waa kuma buugga qoray fikradda guud ee buugga uu ka hadlayana waa fikrad noocaya kadibna qodobada nuxurka iyo afkaarta qaar ka mid waxaan u dhiibaynaa insha allah cabdiraxmaan soo dhowow bismillah asalaamu calaykum waxa waaye buuggan waxa qoray qoraagan American writer-ka ah sidoo kale waa speaker oo dadkan badanaa dadka la hadlo waaye author-kan wuxuu dhashay 1974kii meelahaas buugaag badan uu qoray badanaa isaga diiradda aad wuxuu u saaraa uu ka hadlaaba buugaagtiisa badanaa hadda midkan xitaa markaan aqrinay wuxuu dhahay leaderka waxaa laga rabaa leaderka soo asaga leadernimada iyo hogaaminta dadku aad diiradda u saaraan marka waxyaabaha qoraaga meelaha ugu muhiimsan uu sheegaya waxaa ka mid ah fikradda guud horta buuggan uu xambaarsan yahay waxay tahay qofka markuu yahay qof fikrad wanaagsan inuu guuleysan karo haddii uusan ahayna inuu baran karo oo noloshan wax walbo badanaa waxay u badan yihiin wax la barto iska yar tahay waxyaabaha lala dhasho laakiin wax laga yaabaa qofka markaa ku dhahdo haddii aad fikrad wanaagsan yeelato aad guuleysanaysa waxaa laga yaabaa inay xamaasad qaado so oo haddana hadhow dib u hakado sidaa daraaddeed wuxuu u sheegayaa waxyaabaha ay tahay in way sii ogaadaan marka ay rabaan
inay noloshan heerka ka gaaraan ama ay fikrada wanaagsan la imaadaan waxa ka mid ah inay sii ogaadaan waxa inay automatic ahayn difficulty inay tahay laakiin wuxuu haddana u raacinayaa arrin yar oo ay ku siinasan karaan oo ah in fikradan wanaagsan ay mudan tahay in la maalgashto sidaas lamid wuxuu sheegayaa wayska markaad dhahdo qofku dhahdo dabcan waxa noqon kartaa qof guuleyso wuxuu ku leeyahay su-aasha ugu horeysa oo ku weydiinaya waa how so wuxuu ku sheegaa sidaad ku noqon kartaa qof guuleystay waxa ka mid ah inaad naftaada usoo jiido input wanaagsan dabcan waxaa lahaa cilmiga waa waxa lagu qoodiyo maskaxda aadanaha sida jismigeena aan cuntada ugu qoodino so wuxuu ku leeyahay ka fikir inputka aad noloshaada gelinayso asxaabtaada waxyaabaha adiga kugu hareereysan tviyada aad daawato kale waxa ka mid ah sidoo kale inaad adiga doorato inaad si wanaagsan u fikirto waayo qofna kuguma amreyso waxaad ku fikiri doonto sidaas si lamida waxa ka mid ah inaad action la imaado actionkana waa muhiim waana waxay isku dhaafeen guuleystayaasha iyo guuldareystayaasha waana tii uu lahaa abwaan seeko riyada aad ficil ku darin sideed ku rumaynaysaa waayo riyada inaad iska riyooto dadku waa wada riyoodaan laakiin waxa la isku soo dhaafo waa actionka repetitionkana waa sidoo kale arrin aad muhiim ah waxyaabo kala jiro oo muhiim ah marka qofka aadanaha uu rabo inuu fikro waxa ka mid ah positionka uu ku fikri lahaa ee wanaagsanaa inuu raadsado waayo dadku isku meel fikrad kulama soo dhacdo inaad dad la wadaagto fikradda wanaagsan ustaad haddii xoogaa aan ku dheeraado ay hakin kartaa waqtigeyga markuu dhamaado waxa ka mid ah inaad fikradahaaga dadka la wadaagto waayo waxa jirto oraah dhehayso right thoughts plus the right people in the right environment at the right time for the right reason equals to the right result يعني fikrad wanaagsan oo dadkeedii asalka ahaa lala helay environment saxa lagu soo bandhigay waxay keeni doontaa natiijo sax ah waqtigeeda saxda haddii la soo bandhigo fikradaha ugu wanaagsan waxa ka mid ah inaad focus yeelato focuskana ma aha noloshaada meel walba inaad focus garayso waxa ka mid ah waxyaabaha xilimka adiga aad leedahay hibooyinka alla ku siiyey sidaas si lamid ah dreamska aad leedahay inaad gaarto inaad iska saarto wax walba oo distraction oo noloshan ku carqaladeynayo markaad rabto inaad la imaado fikrad wanaagsan inta kale walaalkay aan sii doono insha Allah aad baad u mahadsantahay sida quruxda badan aad inoola wadaagtay cabdiraxmaan soo dhawo fikradaha buugga ku jira ugu cudoonaad nala wadaagi karaysid haddaad wax ku daraysid qoraaga iyo xidhiirkaad la leedahay hadday waxbaad ka tilmaantay soo dhawo insha Allah استاذي aad baa u mahadsan tahay xaqiiqatan haddaan marka koowaad aan ku horeeyo qoraagu waa John Maxwell waa hogaamiye ahna tababare xaqiiqatan markii la yiraahdo leadershipkana waa ragga ugu caansan best sellers buugga haysta oo buugta uu ka qoro leadershipka aad bay u wanaagsan yihiin haddii aan si la faguro xaqiiqatan buugga magaciisa oo ah sidee dadka guuleystay ay u fakeraan qof walba wuu isweydiinayaa miyaan noqon karaa qof si wanaagsan u fakira muxuu yahay qofka sida fiican u fakira mufakirku waa ayo mufakirnimadu miyaa lagu dhashaa oo dad gaara noqda oo ma qof ay ku sareeyaa oo maskaxdiisu dadka kale ka duwan tahay su'aalo badan oo noocaas ah jira oo ay dadku isweydiinayaan marka xaqiiqatan John Maxwell wuxuu leeyahay 11 xirfadood haddii laga helo waad baran kartaa ama waad noqon kartaa qof leh hab fikir wanaagsan ama u fikira sida dadka guuleystay marka 11 qodob xaqiiqatan mid ka dhaca ma jirto waa silsilad jain aweeyo isku xiriirsan marka mid ka maran ma jirto marka ka ugu horeeya haddaan ii soo qabto waa aragti la yiraahdo ama aragti la yiraahdo big picture ama sawirka weyn sawirka weyn wuxuu tilmaamayaa markaasu shay walba oo qabanayso duruuf kasta oo ku sugan tahay markasta inaad ka fikirto sawirka weyn ama hadafka guud shaygan u qabanayso haddaad maanta doonayso inaad noqoto qoraa weyn ama qof caada wax akhris leh inaad
si walba waqtigu kugu yaryahay si walba u mashquulsan tahay markasta waa inaad ka fikirto sawirka weyn ee aad meeshaad u socoto waxaa ku lamaan aragtidaada big pictureka focus thinking wuxuu leeyahay yani social media baa maanta aad inoo saameynaya oo kulleyto dee ah waxa hadda la wada isticmaalayo platform aan laga maarmin marka tusaalehaan hadda markaa buug akhrinayso oo kale waxaa laga yaabaa ustaadka hadda ka hor waxyaalahan kaa faa'iiday ka mid tahay active reader inaad noqoto active readerku markaas wuxuu soo hoosgelayaa inaad tahay qof focus leh xirfadda marka waa inaad isticmaasho oo mar walba noqon qof wixii uu qabanayay hal saacna had noqoto inuu maankaagu joogo oo aad focus noqoto aragtidaas waa aragtida labaad ta saddexaad aniga aad ii soo jiidato waxaa weeye reflection thinking يعني dib milicsiga waxyaalihii ku qorshaysnaa ha ugu horeyso qorshayaashaadii maalinlaha ahaa haddii noqoto kuwii bilaha ahaa kuwii sanadlaha ahaa marka habeenkii markaad seexanayso waa inaad reflection samayso waa sababaha dadka guulaystay isku dhaafaan inaad reflection samayso maanta maxaa kuu qabsoomay daily routinkagi buugga inta page ugu talagashay ma akhrisay iyo sidaas lamida qodobada kale aad isu jirto waxaa ka mid ah possibility thinking aragti uu leeyahay oo ah inaad mar walba noqoto qof aragtida soo socota yani possibilityga dhanka wanaagsan ka fikiri kara inaad noqoto oo aaminto waxaanay ku leeyihiin dadka agtaada ku xeeran macquul ma aha tusaale haddaad doonayso inaad bishan gudaheeda 3 buug akhriso oo buugiiba 7 aad ku akhriso dad bay u arkaa ku agjoogaan markasta wuxuu arkaa inaysan macquul ahayn inaadan marka laakiin aduu markasta waa inaad noqoto qof dhanka possibility thinking u fikirayo aaminsan inaad ku guuleysan karto maalinkaad dhamayso khulaasadiisana aad aragtida aamini karto ta kale ayaduna aad muhiimka u ah qofkii ganacsi ku jira iyo qof kastana ay laga maarmaan tahay oon isleeyahay buuguna u soo jeedin waa strategic thinking nidaam fikir istaraatiijiyad inaad leedahay oo wax kuu qorshaysan yihiin oo daily balankii waa soo gelaya kii jaamacaddaa soo gelaya marka qof walba oon lahayn strategic thinking hadduusan qofku lahayn nidaam istaraatiijiyadu ku fikiro ma noqon karo marka qof guulaysta ah ayadoo kale waxyaalaha buuggan laga dhaxlo waxaa jirta qofku waa inuu leeyahay thinking space qayb aad ku fikirto ma leedahay dadkeena badanaa waxaa laga yaabaa inay la yaabaan laakiin qofka waxaad u baahan tahay inaad leedahay waqti aad fikirto oo aad ka fikirto sidaan wax u qabsan karaa mashruucyadii sidaan u socodsiin karaa maxaa i qabsoomay maxaan i qabsoomin marka waa inaad leedahay sport ku gaara ha noqoto inaad meel baarki aad tagto ha noqoto inaad habeenkii markaad sii seexanay sidoo kale aad waqti yar oo kooban aad naftaada la qaadato marka anoo jeclaan lahaa qof walba oo iga mid ah inuu buuggan akhriyo kuma soo koobi karo haddaan dhaho waan sii dhexgelayaa waayo asaga dhan baa source socda qof walba oo u baahan inuu hogaamiye noqdo hogaamiyuhu nafta ka bilaabanaysa inuu leadership noqdo John Maxwell buugtiisa waan u recommend gareyn lahaa inuu akhristo asaga iyo John Eder ninka la yiraahdo asaguna nin professorka ugu horeeyay loo calayma saaray xagga leadershipka ah oo buugga the leadership of Muhammad sallallahu alayhi wasallam Muhammad buuggu kaga hadlayay wax ka qoray ah waan u soo jeedin lahaa ustaadkana waxaan aad uga mahadcelinayaa inuu buuggan noogu soo daray buugga Charlia iyo buugta dambana insha Allah inuu sidan si lamid noogu soo xilaan soo gabagabeynaya insha Allah waxaan soo xasuustana waan soo dhexgelin doonaa aad baad u mahadsantahay insha Allah waa idin imanaysaa maadaama aad waqti fiican aad qaadateen buuggan buugga ku xigaan insha Allah u gudbaya aad baad Abdiraxmaan u mahadsantahay sida quruxda badan adiga iyo dunyaba aad soo koobteen buuggan ilaahay subxaanahu wa ta'aala miisaanka xasanaadka idin saaro waqtiga aad geliseen waxaan u dhiibayaa iminkana buuggii kale inoo haray buuggii saddexaad saan hore u tilmaamaya waxaan aad u jeclaan lahaa in aynu waqti haysan lahayn buug keliyana inoo ahaan lahaa waad dareemaysaan inaad daawanaysaan waa ka cudur daaranaynaa in
saddex buug aan muddo yaroo kooban aan rabno inaan afkaarteedii idinku soo gudbino waxaan u yeedhayaa warsame bade si uu fikrad guud inooga siiyo buugga saddexaad ee ah who moved my cheese warsame soo dhawow qoraagayna waa kuma fikradda guud ee buugga uu gudbinayana nala wadaag insha allah soo dhawow. السلام عليكم ورحمة الله وأد ما سنت أستاذ بوغن Who Moved My Cheese waxaa qoray Spencer Johnson. Spencer Johnson wuxuu leeyahay waxay nin kala wada qoreen buug kalosna aad iyo aad u cajiib oo sida kan oo kale u kooban oo la yidhaahdo new 1 minute manager baa loola jiray imika buuggan way soo cusbanaysiin the new 1 minute manager baa la yidhaahdaa qoraagu sheekadan uu mala awaalay uu allahu mustacaan uu maleeyey waxayna ku dhalatay markuu arkay dad badan oo allahu mustacaan markuu isbedelku ku yimaado ay noloshooda isbedelka aanan la falgaleen marka waxyaabihii ugu la yaabka badnaa ee sheekadan markaad aragtid wuxuu ugu fiirsataa waxa kugu dhacaya isbedelo xoog badan baa inagu dhaca kuwo jismi ahaaneed ha noqoto iyo kuwo caqli ahaanba ha noqoto iyo kuwo bay'aba ha noqoto bay'a bedelataba ha noqotee marka isbedeladaas inta badan allahu mustacaan hadday dhacaan inta badan garwadeyn kama nihiin oo isbedelkii inaguma wadno laakiin hadduu dhaco sideed isbedelkii ula falgalaysaa waxa uu buuggan waa mar kastoon allahu mustacaan isbedel igu dhaco ama mar kastoon isdhaahdo war arrintan xaggeeda iyo xaggeeda uga baxdaa ayaan akhriyahay oo ku noqdo sheeko aad iyo aad u cajiiba oo ku siinaysa waddo inay wadda jirto inay waxaan wax ka fiican jiraan xataa haddii aanad isbedelkan uu saameyn kugu yeesho ood wax kale ka qaban karayn wuxuu ku tusayaa inuu ku adkayn karayo uu isbedelkan wax ka fiican ama waxaan kaa lumay wax ka fiican uu jiro run ahaantii waxa kaloo aad iyo aad ula yaabaysa aad iyo aad ula cajiibaysaa inta badan allahu mustacaan haddaynu bilaadan nahay sidaynu uga falcelino waa sida hem waa ninkii allahu mustacaan meeshiisa ku dhegay yidhi meesha ma joogaya waxyaabaha kale aad iyo aad soran karto allahu mustacaan buuggan ama sheekadani waxay aad iyo aad uga buuxa in allahu mustacaan aad wax eegi karaysid aad mustaqbalka naawili karaysid adoo ka kaalin qaadanaya ama adoo ka shidaal qaadanaya waxay kugu soo dhacay run ahaantii waa buug aad iyo aad u cudoon waa sheeko aad iyo aad u cudoon waa buugtan allahu mustacaan akhriska ku bilaabay I think imika inaan 3-4 jeer imika inaan akhriban u malaynaya inta kale waxaan u dhaafaya cabdifatax haddii rabbi idmo waqtiga nagu yar awgeed yaasiin ha si qurux badan muuqaalkaagii ku jiray facebookana si qurux badan baad runtii ugu soo koobtay weli waxaan jeclaystay muuqaalka kala dul saartay jiirkii baad si caadiyaad usii dul saartay maasha allah yaasiin soo dhawow nala wadaag nuxurka buugga iyo fikradaha kaaga baxay soo dhawow insha allah waqti yar baan haysanaa dhowr daqiiqaan haysanaa insha allah soo dhawow waan dhowaa ustaad horta buuggan waa buug aad u cajiiba qof kastoo akhriyana wax weyn buu ku kordhin karaa xeradan mays ama xeradan luqluuqa 4 noole yaryar snavis gary hem and how waa asxaab sheekafaneed bay u qoran tahay snavis gary waa noole yaryar waa sida jiirka oo kalea hem iyo hawna waa dad sida jiirka leegihin laakiin biniaadanka weyn laakiin jiirka leegyihiin aroor kasta inaan nuxurka soo kooban rabaa kadibna aan fikradaha ku daro si kuway nala jooganayay aan ugu sheeg kolka snavis gary aroorkas way soo kala hayaan afartooda aroorkas way soo kala hayaan xarunta stashiibay ayay cunto usoo doonanayaan markas maalin kasta kolkay saa ugu soo doortaan wuxuu mid kamid labadan hem iyo hawba waxay dhahayaan burcadooda hesho waa noloshii meeshii alashan farxad meeshii ugu dambe intay dee cunaan wax kasta intay burcadka isku guraan cunaan bay odhanayaan inaad burcad hesho waa farxad bartii ugu dambeysay sidii maalin kasta ugu soo kala hayaan meesha xarunta sii baa waxaa dhacaysa inay wixii isnusqaaminayo oo kolba in sii go-ayso oo meeshii dhammaanayso kolka snavis gary waxay ka warqabeen inuu waxaan sii dhammaanayo
markasta wuu ogaa inuu waxaan siinayo laakiin labada kale warkama hayn heemi kolkii ugu dambeyn xaruntii way dhamaatay aroortii kale kolkii la yimaaday isninkii isgaari isla markiiba iskaga cararay meesha waxay maadaama ogaa in meeshu siiyey nusqaaminta isla markiiba isbedelka iyagu u diyaar garoobeen way carareen waxay tegeen waxay deedeen burcad kale meeshay ka raadin lahaayeen xaggay heemi haw ay maalmo kale kusoo noqnoqonayeen ilaa dhowr maalmood ay kusoo noqdeen ugu dambeyn haw waa kii go-aanka qaadanayay oo saaxiib ugu dambeyn wuxuu go-aan ka qaadanaya saaxiibkii maadaama isagu kan heem la leeyahay una isbedelkii rabin oo xaruntii station sigan kusii dejsan yahay una meel kale uga dhaqaaqay ilaa uu isbedel ilaa uu go-aan ku qaatay inuu iskaga tago saaxiibkii uu dego kadib xagga yar kolkii uu isbedelka qaadanayay waa wuxuu soo istaagaya xarunta shiibu kolkuu soo galabu dhinacyadu saa u eegaya wuxuu leeyahay uu yara cabsanaya kolkaa yara cabsi baa gelaysa dib buu yara noqon haddana saa buu yara eeg oran lahaa haddadan cabsi lahaa maxaa samayn haddayna cabsiba ina jirin maxaa samayn lahaa taasaa gilgishay oo dareen gelisay ilaa ugu dambeyn uu xaruntiisa iskaga baxay convert zone iyo xayndaabkii uu isku xidhay waa uu iskaga baxay xaggaybu isbedel buu raadsaday ilaa uu kuwii kale isniif isgaari oo xarun kale burcad ku haysa iskugu tegeen saddexdooda xaggana hawna weli ka haysan xaggana una heemna weli wax isbedela ka haysan kolka haddii aan fikradaha iyo usoo noqdo uu inoo gudbinayo buuggani horta isbedelku wuu dhacaa markasta isbedelkan wuu dhacaa bini-aadamku ku dhacaa qof kastuu ku dhacaa kolka masajka koowaad uu siinayo buuggan waxa weeyaan ogow inuu isbedelka noloshaada ku dhacay markas isbedelku inuu kugu dhacayo ogow waa talabaad uu ku siinayo waxa weeyaan fila buu ku leeyahay isbedelka marka wuxuu ku yidhi isbedelku inuu dhacayo ogow marka labaad filo inuu isbedelku dhacayo oo ka warhay oo ogow oo u sii baaraan deg oo sii ogow oo wixii aad kaga bixi lahay isbedelka ugu dhici doono u sii samay kolka aad taa masajka labaad ku siiyo masajka saddexaad ku siinayo buuggan fikradda labaad waxa weeyaan la qabsay isbedelka aad heli doonto kale maadaama xarun meel baad tegaysaa meel kalaad matalan meel baad ka tegaysaa meel kalaad tegaysaa meesha kale la tegaysa inaad isbedelka la qabsatana waa midka uu ku siinaya isbedelka wuxuu ku leeyahay isbedelka aad hesho ee xaggaasna ku raaxayso adu fikradaha noocaas buu ku siinaya aan kusoo koobi karo inahaas aan si qurux badan baad soo koobtay adigii warsamaba aad baad u mahadsan tihiin cid buugtii aynu soo dhaafnay weliba labadii dambe warsame iyo cabdiraxmaan iyo duniya haddii yani wax fikradaad aad xasuusateen oo buuggeeda raacinaysaan ma jirtaa haddaan ku dari lahaa ustaad fikrad allahuma mustacaan aan odhan lahaa buuggan bay ku jirtaa waa allahuma mustacaan buuggan wuxuu ii fura xataa inaan raadiyo bal buugaa kale oo ka qoran allahuma mustacaan mawduucan isbedelka iyo caqabaadka iyo problemka iyo waxyaabaha imanaya marka waa isbedelku iyo bal saynu allahuma mustacaan u arkeen waxyaabaha kale ka arkaysa ah inaad markasta wax kastaba yihiin perception aragtida inay yihiin saad wax u arkayso waxaan kugu dhacay inayn ahayn inay tahay saad adigu u arkayso waa arrin aad iyo aad aan isleeyahay xataa noloshaydan waan la noolahay iminka waayo waagii hore waxaa mararka qaar igu dhici jirtaan sodhan karaa anuu gaadhiga socda inuu qofba baarkinka adoo trafficka ku horgoynayo ku jiray waxaad dareemaysay qofkan muxuusan kugu waxaynaya sidii qofku garanayo kale waad inaad ka cadhoonayso kale ama uu traffic kugu dhacayba wadada buuq ay noqonayso waqti badan xaggaa kaaga halaabay marka aanad dareemayn allahuma mustacaan deganaashiyo marka inaad markasta perceptionkaaga ama aragtidaada bedeshid oo san aad u arkaysid aad bal dhinaca wanaagsan aad diiradda ka saartay fikraddaas baan isleeyahay waa fikrad kale oo aad iyo aad u muhiima keliya aan ahayn de waxyaabihii waaweynaa noloshaada kugu imanaya keliya aan ahayn laakiin xitaa isbedeladan yaryar ee dayliga ah ee nolosha iyo fikriga ku salaysan inaad aad baad u mahadsan tahay cabdiraxmaan buugga hore waxaad ku daraysa miyaa jiraa mar baad lahayd waxbaan ku darayaa laba qodob waxaan jirta yaro raba inaan laagayo
fikirkii markii aad doonayso inaad aad ka mid noqoto dadka nolosha bararaha ka gaadhay fikirkiina aad haysato maxaad u baahan tahay laba qodob u baahan tahay baa jirta waxaa weeye inaad samaysato environment oo aad hesho dad sidaadoo kale u fikiraya oo sidaadoo kale nolosha doonaya inaad isku environment noqotaan ama dad baraaray oo kale dadku markaste dadka kugu ag hareersan inay noqdaan dad aad fikradaada ku ballaarin karto group thinking inaad marka samayso oo aad la sheekaysato oo ka mid noqoto mawlacyada kuwan oo kale ah ee bugaagta lagu gurfaynayo afkaaraha jeceshahay lagaga hadlayo oo waxyaalaha kaa saacidaya inay magaranaysaa qaab fikirkaaga wanaagsanaado aad maskax ahaan aad kobcdo marka ustaadi aad baan u mahadsan tahay labadaasaan kusoo gabagabeynaya aad baad u mahadsan tahay qof walba hal kelmid baan siinaya daqiiqad insha allah aan kusoo gabagabeynayno barnaamijka dhalinyaradu waxaa akhriya dhammaantiin xilli baa jirta idan waxba akhriyi jirin maxay talaabaad siinaysaan dhalinyarada idin daawanaya aan iyagu weli buug aan weli dhammayn weli caadadii akhriska aan u samaysmin maxaad tala siin karaysaan waddadaa dheer aad soo marteen maxaad uga tilmaami karaysaan waxaan ku hormarayaa cabdifataax codkaaga waa xidhan yahay ustaad kuma maqan نعم وين مقشان صح؟ نعم ها حلو استاذي هذان اسكو دايو inaan muxuu ahaa tala siiyo dadka inay wax akhriyaan u baahan yani hal qodob baa jira akhriska inuu horta ogaado qiimaha iyo muga uu leeyahay isagana fahantiisa iyo bulshada uu ku dhex jiro qiimaha uu leeyahay marka koowaad inuu ogaado mar labaadka inuu isku dayo ha noqoto 10 daqiiqo 20 daqiiqo oo caado ah maalinkiisa dhan 24 saac maalinimadiisu ka kooban tahay inuu kaga faa'iideysto yani مالك بن نبي مفكر كانوا في شيء وقتي قبل في شيء كيني يعني صبح فجري مركو بريو صبح حاك صومر يا ولد واقع هلا يا واقع يا ورانا يا يقف إليسو إنه بدي بوصل قلنا يو إلا قيامة مركا مالك كا صومرتي إنه حتى هل بوك لبوك إنه وحكة رأيته مالك يسا إنه سكوت يو بدنك هو لقب سنة يقف وحلا هذا إنه وحو بدنك كعل إليو أينبو مقرانسا أينبو لقب صدا لك هنا marka inaanu muxuu ahaa in caado samaysto wax akhris caado ka dhigto aad iyo aad baad u mahadsantahay miski waxaan kula talin lahaa dhalinyarada horta akhriska dadka laba qaybood waa qaybna horta si ahaan wayba jecel yihiin inay wax akhriyaan qaybna way ku culus tahay oo waxay rabaan inay bartaan sidii wax loo akhriyo oo caado akhris ay samaystaan marka dhalinyarada waxaan kula talin lahaa laba qodob qodobka koowaad horta inay akhriska ku bilaabaan waxyaalaha ay jecel yihiin si buwaag yar sida waxaa jirta buwaag oo 10 page ah ama 20 page sheekooyin halka haday jecel yihiin oo kale sidoo kale waxaan kula talin lahaa in boostiyada internetka la soo dhigo kale qofka inuu iska yareeyo sababtoo boostiyada hadduu qofku isku badiyo waxaa dhacaysa in akhriska faraha badnaa in uu naco tawaas qodob haddii waxaa kaloo kula talin lahaa qofka inuu qaato go'aanku wuxuu qayb weyn ka qaataa inuu noloshaada bedelo in aad caado akhris samaysato waxyaalaha wax kaa bedeli kara waxay tahay go'aan adag inaa la imaado casiimaad qofku markii uu fahmo akhriska qiimaha uu leeyahay oo haddana uu go'aan u qaato haddana uu ku bilaabo waxyaalaha uu jecel yahay uuna iska yaray boostiyada waxay u badan tahay 90% inuu qofkaas caado wax akhris yeesho haddii uu caado wax akhris u yeeshana waa sidii uu rabay markaas wuxuu ku darsan karaa wuxuu samayn karaa sanadkii inuu buugaag u akhristo inuu qorsheysto asan kula talin dhalinyarada xarajina marka bulshada inay bulsho akhris ay noqoto insha Allah aad baad u mahadsantahay miski Yasin soo dhawow waxaad kula talin lahayd dhalinyarada doonaysa inay dad wax akhriya noqdaan oo talaad siin lahayd oo nolosheenaan ka baranay horta ustaado inaan yar dhawaajiyo ayaan rabaa dadkeena ama
xataa ka qoyska leh wuxuu jecel yahay inuu intaad bedelo ama dadkaa bedelo wuxuu ku bedeli karana waa taas wuxuu ku bedeli karaa waa inuu naftiisa bedelo soma naftiisa inuu bedelana waa inuu lahaado caado wax taan baana naftiisa bedeli kara kolkaa qofku hadduu caado wax abuurto naftiisu bedeli inta ku hareeraysan buu bedeli bulshadoo dhan buu bedeli laakiin hadduuna caado wax lahayn ma bedeli karo hadda su-aasha taala meesha waxa weeyaan caado wax akhrisayaan u yeelan karaa caadada wax akhris waxa ka horeysa inaad caado wax akhris yeelato maxaan ka aaminsanahay akhrisku maxaan ka aaminsanahay dad baa ka aaminsan inaa wax la akhriyaba inay waali tahay alasha inaad bug soo qaata ama aad wadato waxayba u haystaanba inaad lagu waashaba ya dad baa waxay u haystaanba hadday ku arkaan adoo wax akrinaya waxay ku oran waad ku waalin iska daa waayahay innagii oo fikirka ka aaminsan idan waa sidee caado wax ku yeelanayna kolka ugu horeyn waxa weeyaan inaad fikradda ama waxaad ka haysata akhrisku yahay wax wanaagsan hadda anigoo kale akhriska maxaan ka haystaa akhriska dhan wax akhriyo nolosheeda bedelmisa maxaan ku dhahay waxbaa ii kordhaya indhaha ii furmaya xataa anigaygan kula hadlaya mar kastan wax akhriyo inta yar guriga yareen joogo wuu isbedelaa marba waxbaa kusoo kordha waxa laga yaabaa berigii hore inaana xataa in iska daa intaadan meel kala gaarin guriga yara deganta ayaa isbedelaya nidaam buu yeelanaya waxa laga yaabaa inuu waxyaabo kolkaas ugu horeyn waxaan u baahannahay inaan aragtida in la bedelo aragtida laga haysato dib ugu laabo aragtidaad ka haysato waa inaad marka hore saxdaa si intaadan bug soo qaadin waayo waxa la yidhi laba nin baa wuxuu go'aansaday inuu sigaarka iska daayo kolkuu sigaarka iska daayo u go'aansaday baa nin kaloo sigaarka cabay baa yimid wuxuu ku yidhi oo sigaarka cab kadib wuxuu yidhi sigaarka ma cabay inaan iska daayaan rabaa buu dhahay bug atomic habit buu ku jiraa waan filaya sheekeero saasa mood baad gashay raali noqda wuxuu dhahay alashaan bug atomic habit baa ka sheekeynaya kolkaa wuxuu leeyahay qofku inuu iska daayo inuu alashaan waxa ka horeysa inaad waxa jira identity change iyo systematic change iyo outcome change saddexdaa isbedelku ka dhaca kolka dadku waxay isku dayaan bura in outcome-ka ay bedelaan iyagoo weli identity-ga bedel kolka qofkii wuxuu u baahan yahay inuu ugu horeyn identity-ga waxan ka haysto iska bedel kolka ugu horeyn aananoo waqti badan qaadanin waa inaan ugu horeyn identity-ga ama fikradda aan ka haysana akhriska waa inaan marka hore hagaajinaa kadib kolkaan fikradda hagaajino waxyaabaha kale caadi bay noqonayaan waxyaabaha kale iyaga caadi bay inuu noqonaya kolkaas bulshada lagu bedeli karana waa akhriska waa inaad caado akhriyatin waa inaad fikirkaaga iska bedesho wixii kalena aad midna inaan ku dara raba ustaad qof kolkuu akhriska bilaabo waxaa la yidhi ninka buuran hadduu 10 cisho ordo iyo hadduu bil ordo cisho iskuma bedelo laakiin isbedelka wuxuu arkayaa muddo kadib علشان واحد على outcome ama natiijada qofka natiijada waqti ka dambeeyo arkaya natiijadu way daalaa kolka hadda caado akhris yeelato markaa baad ku qaad inaad cilmi badan helayso kolka u samir qalbe in qaado qalbe wax isku day insha Allah 10 ama sanad kadib ada insha Allah natiijada arkay aad baad u mahadsantahay dunya maxaad tala siin lahayd dhalinyarada dhalinyarada dabcan xoogaa anaga haddaan nahay dadka wax bartana xoogaa waa nagu adagto buwaag intaas la egaana sugaysa laakiin waxaan dhihi lahaa maalin daraad inayada mara sheekh mustafa dhegeysanaya waxa maqlaya isagoo leh 10 minutes only qofka hadduu yoomiyi wax aqriyo ama xitaa hal page haddii wax aqriyo 5 sano ama muddo adiga 10 sano miya decade wax ku dhow adiga wuxuu ku noqon doonaa fannigaas yani qofkii laga qaadan lahaa cilmigiisa
marka si kastoo waqtiga uu kuga adag yahay wax cun u qorshee oo aniga nafteeda xitaa aan ku waaninayo ka sokow ayaga sidaas la mid ah waxyaabaha caqabadaha kuga markaa wax aqrinayso noloshaada ka saar sida meelaha buuqa leh oo kale sidaas la midna waqti samayso waqtiga wuxuu kaa saacidayaa in si automatic ah maskaxdaada aysan ka fikirin wax aqris u baahan tahay ashyaada aad u baahan tahay markaas ma soo dhaweyso goolna ka yeelo wax walbo aan gool lahayn dabcan meel walba dhexii ku dhamaadaan gool ka yeelo yacni goolkaaga ha ahaada mid clear ah mid la gaari karo noloshaadana dabcan wax un kusoo korinayo intaad ku guda jirto dad caqabada aragtana waa intuu seeka ka yiri ahayd only jaranjarada guushaada baro samir la jaarkeeda wax ku joojo lama waaye iyo soo jirin qadari jajab iyo haddaad wiiqanto lagu jallaafeeyo noloshaba qofkii soo jabaa jiqa wanaageedi ugu soco jilbaha looyahoo jiita muliga marka aan jiitana wax akhriska insha allah aad u mahadsantahay warsame maasha allah ustaad aad iyo aad ay walaalayn baa intii badneed dhameeyey baan ayaan isleeyahay run ahaantii waxaan anigu ka hadlay un waxyaabahii fudeediyay inaan noqday qof akhrista noqdo waayo weligay wax ma akhrin iskuulka waxay ugu dambeeyey galaaska 11aad ama form 3 I think waan malaynayaa waxbarashadana yaraanteedii ama markaan iskuulka dhigan jiray kuma fiicneyn laakiin waxaan allahu mustacaan la noolaaday marka koowaad waxaan leeyahay horta qof kastoo raba inuu akhriska caada wax akhris samaysto youtube-ka mubaarak tago 5 jeer hadda wada cala book kasta 5 jeer hadda wada ama intuu wadna mustacaan marka wuxuu dareemayaa qofku inuu wax badan ay ka maqan yihiin fikradahan iyo waxyaabahan uu mubaarak soo bandhigay maahan intaa iyo in ka badan ay ka maqan yihiin waxyaabihii insan maxayna noqdo qof akhrista waxaan u dhigtay sida hadafka oo kale weligay ma garanin hadaf la dhigto waxaan ka helay bay ahayd youtube-kaagan waan ka helay buugga no excuses waan ka helay oo buugtii ugu horeysan ka akhriyay ahaa qoratid qeexdid allahu mustacaan qofku hadduu leeyahay qof hadaf leh oo hadafka ahdaafteeda aad ku dhex darsatid inaad noqotid sanadkan qof wax akhriya inaad noqotid sanadkan qof intaasoo buug wax akhriya haddii aad hadafkaa qoratid waxaad isweydiinaysaa waa sidaad u qaban lahayd waxyaabaha labaad ee isleeyahay waxay saamaxay caado horan lahaa baan ku xidhiidhsaday subaxii markaan kacaan salaada tukado xataa akhriska wuxuu ii fudeydiyay inaan qur-aanka akhriyi jirin weligaygii hore inaan qur-aankii la noolaado imika muddadaas I think labadaas sanad aduu sanad iyo 8 bilood baan maraynaya intaan wax akhriyo inaan 2 jeer dhameeyey anoo akhrinayo hal page iyo masaxaf iyo hadba intaan karayo subax kasta la noolaado akhriyo xataa wax badan ka fahmo waxyaabaha allahu mustacaan kalen isleeyahay inuu qofku caadada ku xidhiidsado inuu aaminanayo inuu waxaan qaban karayo run ahaantii markaan buuggii ugu horreeyay akhriyay 30% baan ka fahmay mubaarago laakiin maanta markaan buug akhrinayo ama markaan oraha akhrinayo ama markaan wax dhageysanayo audible I think inaan dhageystay in ka badan wax badan aan ka dhageystay wax walba waan akhriyo waan fahmaa wax walba akhristana wax walba dhageystana waan fahmaa waxa ku xiran tahay hadba saad u aamintay intii ugu horeysay faankaygu uu yaraa waan caajisi jiray waan allahu mustacaan waxyaabo badan bay ayay igu dhici jirtay xataa waxay dhici jirtay inaan maalin ilaawo laakiin waan la noolaaday haddaan mar kufo waan soo noqon jiray haddaan mar kufo waan soo noqon jiray haddaan mar kufo waan soo noqon jiray maanta muddo sanad iyo 8 bilood ah markaan dib u baxay reflect ku sameeyay wadadii akhriskaan usoo maray xataa maaha kaliya inaad qof akhristo noqonaysid jawaanibtaada dhaqaalaha hormaraya jawaanibtaada xiriirka hormaraya kuwaga ganacsiga hormaraya xidhiidhadaad rabbiga la leedahay hormaraya wax kasto jaanib kastood maanta istiraadid waxba kama gelaysid maxaa buug ka qoran Amazon gal meel kala gal Google ka gar maxaa ka qoran buug aad doono buugii akhri qof wax ka og baad tahay waxa Allah mustaqbal effective ugu yeelanaya qofkii ha wuxuu noqonayaa qof Allah mustaqbal wax raadsan karayo wax baran karayo imika mushkilad bay ugu timid soma mushkiladan cid iga horeysa jirto inaan baadha waa inaan buug raadiya akhriya wixii Allah mustaqbal ka helno midda saddexaad waxa isleeyahay dadku information kuma yara wacaalku kuma yara mubaarak intaas buu leeyahay akhrisku taa buu leeyahay meelo badan maanta dunidana aynu noolnahay waxay boqolkii sano ugu dambeysay wixii la soo maray
xilligii beeraha xilligii warshadaha xilligii informationka imika information age waan ka gudubnay waxaan u gudubnay communication age iyo xilligan aynu nool nahay maantana qof aan maalin kasta horumarnay mooyaane qofku wuxuu noqonayaa qof isagu hoos u socda waa ka ilaahayna quraankiisa kula liman kaana minkum man yataqaddama aw yataakhir janib kasto noloshaada kamidana inaad ahdaaf ka samaysatid inaad waxaan Allahu musta'an the moment aad fikrad heshid maanta xagaas baan kaga hadlaynaa sidee Allahu musta'an akhris loo sameystaa akhrisku faa'iido muxuu leeyahay inuu Allahu musta'an qofku intaas oo dhan ka warhaya macquula laakiin uu leeyahay bariban sameyn sahan dama sameyn one eegi haddii aanad book helayn Allahu musta'an PDF ku bilow haddii aanad PDF helayn wax kasta maanta waa caalku inoo fudaaday chance kan aynu nool nahay maanta rag billionaire ahaa xilligii saxaabada aba xilliga chance kan meeysan inaad one clicking book kasta ku heli karto information kii ku heli karto meel kaste wax kaste waa nimcad ilaahayna si nimcadaasna hadda sideeda Allah musta'an anadu uga faa'iideysan oo sideeda ula falgelin noloshu ay soconaysaa way dhamaanaysaa marka waxaan ku soo guudmeerayaa mubaarigo inuu qofku fikradda imika markuu helo isla maalintii aan ugu horeysan buugga ugu horeeyay dirsanayay waxay maalin adadiyo maxamed cumar ku wada jirteen live-ka oo Allahu musta'an book recommendation sameynayeen maanta baad dirsaday labadeedii buug ugu horeysay akhriska waan bilaabay sidii baan la noolaa waan ku fay marar badan waxaas leeyahay qofkuna inuu maanta iyo maalintuu dhageysan doono xilli kala dib u dhigin isla waqtiga joogtid bilow waxa kale iyaga isagaajin doona adoo 60 buug maraya adoo 100 buug maraya adoo wax kasto akhrisid fahmaya anu 100% ma fahmay luqadda ingiriiska isku meel fiicnay maanta laakiin wax badan ma ka fahmay marka waxaan leeyahay dhalinyarta ha bilow aad intaas baan kusoo gudmeeraya aad baad u mahadsantahay sida quruxda badanaad noloshaadii inaad ugu dabaqday runtii qofku markuu noloshiisa ku dabaqo afkaarta uu ka hadlayo oo sawir noloshiisa ka siiyo macna ka duwan bay ku leedahay marka uu fikrad kaliya ku sheegayo qalalan aad baad u mahadsantahay cabdifataax baan kusoo gabagabeynayna cabdiraxmaan soo dhawo cabdiraxmaan soo dhawo ustaadi kelmadaada ugu dambeysa dhalinyarada kula talin lahayd waan dhawahay ustaadi anigu kolleyto waxaan rajaynayaa labo inaan kusoo gabagabeeyo insha allah qodobka ugu horeeya waxa weeye bulshadeena Soomaaliyeed si guud dad wax akhriya maaha waa iska oral society baa la yiraahdaa waxa uu soo xiga ee labaad waa inay wax dhageystaan waxaan jeclaan lahayn qofku markuu wax akhriska badiyo ee bilaabo unbuu wax qorid maabira afkaarahan aan sheegayna maanta ee muuqaalka aan hadda aan la diyaariyo si maanta bulshadeena aan ognahay meeshay taagan tahay laftirkooda ay soo noqoto bulsho soo kacda qodobka labaad akhrisku waa dhalinyartu waa qola hadda doonaysa inay soo gasho iyo qola hore ugu soo jirtay kuwa doonaya hadda inay soo galaan waxaa la yiraahdaa xamaasad baa laga yaabaa inay hayso arkaan ama muuqaal aad social mediaha looga faalooday oo dad isticmaalo oo kale iyo dad kale oo caana ay ka hadlayaan marka waxa laga yaabaa qofka inay xamaasad qaado laakiin xamaasadaas si uu joogteen kartaa waa inaad samaysato hadaf aad ku noqoto akhriste aad jaranjaradii koowaad ee walaalay kasoo sheekayna soo bilowdo inaad buug yar ka bilowdo inaad bishii buug akhriso labadii bilood hal buug inaad akhriso khasab maaha inaad buug akhriso tusaale ahaan qofkii quraanka akhriskiisa ku fiicanna akhriya waxaa xaqiiqo ah inuu wax akhriska kalena ku wanaagsanaanayo marka the 5am xajriya buug yiraahdo asuna aad cajiib u ah marka aroortii qofkii salaada subax tukada wuu awoodaa inuu magaranaysaa jadwalkiisa wax akhris xilligaa ka bilaabo oo xilliga u fiican ah dhalinyarada wax akhriska bilaabo laakiin dhex ku joojiya inay samaystaan caado wax akhris oo ku salaysan fikir lagu daray action oo lagu daray markii dambana inay sameeyaan focus oo hadaya focus waa muhiim shay walba qabanaysa inaad focus saarto
haddii kale adoo buugga akhrinaya instagramka hadduu message kaaga soo dhaco maanta waxaan ku jirnaa digital world baan ku jirnaa ama facebook kaaga soo dhaco waxyaalahaas oo kale waxay kuu keenayaan inaad magaranaysaa focuska u kaalamo oo buug intaad ku yara caajito aad iska dhigto marka waxaa isku dayaa mar kastoo wax akhrinayso inaad wixii aad ku laba noqoto oo focus aad samayso xaqiiqatan ustaadku waxaan ugu dambeyn ka codsanayaa challenge-ga inaan caawa bishan lagu joojinin oo insha allahu tacaala bilaha soo socdana ama fikradii buugii bartiisa kasii socdo sidoo kale challenge-gana insha allah inaad noo sii jawabaaro lasii laba jabaaro xaqiiqatanna aad baan kaaga mahad celinaynaa bulshada soomaaliyeed meeshaad ugu jirta iyo barnaamijyahaada ku saabsan wacyigelinta iyo caadada akhrisi loo yeelan lahaa inaad naga dhisto aad baad u mahadsan tahay جزاكم الله خيرا حاولنا إن دمانا كلمة جدا بيسان يوسيي دان عيد كتجين على إيش أجو هذا رنتي نكوا وذا مهد علينا إياه كسوق قبل برابش كسوق قبل قشين كسوق قبل قعد challenge كقبل قشين سمري قعد سبايسير ويدا رنتي جود دير هذا الساعة رنتي أدبان دمانتي نكوا وضعهم بليانا إياه أدبان نكوا مهد علينا إياه وقتها جودي قاعد جلسين واجع على رنتينا بيشن بقى عنكو قبرنا si 60 cishaba u kambilanto laakiin safar yar oo angelayo iyo barnaamijku inaga soo yiri jiitamay ciidiyo inaga soo gashay oo u baahan in hordhac loo sii sameeyo barnaamijka laakiin si kastaba ha ahaatee waxaan insha Allah barnaamijku sii wada doonaa inta dadku dhalinyarada ay caado ka yeelanayaan haddii Ilaahay yiraahdo aad baan dhammaantiin waqtigeena qaaligan idinka wada mahad celinayaa mar labaad iyo mar saddexaadba waan ku faraxsanahay inaad barnaamijka igala qayb qaadateen maanta kuwa kalena waan rajeynaya inaad igala qayb qaadan doontaan haddaanay jirin cid kaloo wax ku darsanaysa inaasan kusoo gebagabaynaynaa barnaamijka aan ku falanqaynayna saddexda buug tafadal insha allah soo dhawo yaasiin in yar baan rabaa inaan ku darsado nin baan beri wada sheekaysanay oo yaro weynaa waxaan ku yidhi hadda nin weyn baa tahay aroortii waxaa tegtaa maxaan ku dhaha aroortii shaqaa tegtaa habeenkii baa timaadaa habeenkiina waa seexataa yaraantaadina waxba akhrin jirtay siyada hadda waxba akhrisaa baan ku yidhi kolka wuxuu igu jawaabay علشان واتيان واسبدل كان كشيكين وقالونا وحي وجه بدل كدو دعا لكن اسبدل كاي ودعا يقومون سامين وحخص كاي وايو بوغيغا جيبدان كو تاغير اما بورصديدي ugu jirta xilka soo xaqri waan kay taraawid maanta firaaqa badan ma haysto hadana caadadeedu waa aqris wali waa sideedii kolka qof kasta si علشان isbedel uu iniman doona eega hadda firaaqa haysto xilli aadan firaaqa helin baa kugu dhici doonta xilli waxyaabo kugu furmi doonaan kolkaas isbedel kastoo kugu dhici doono waa ina u meel dayatahay oo si aad uga bixi lahayd sida wadaadkaas igala sheekeeyo aad baad u mahadsan tahay barnaamijka waxaa igala qayb gelayay yaasiin maxamuud duniye xuseen warsame bade xaaji cabdiraxmaan miski waxaa sidoo kale igala qayb gelayay ustaad cabdifataax oo suudaan jooga aad baad dhammaantiin u wada mahadsantihiin intaan mar kale iyo barnaamij kale aan hawada ku kulmi doono xalqa sidan oo kale ah khayr aad u fara badan baan idin wada rajeynaya dhammaantiin ilaah subxana watacaala ha idin wada barakeeyo waqtigii cimrigii iyo reeraha iyo ehelkaba idin wada barakeeyo aad baan idin wada salaamaya inta maanku gaajaysan yahay قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.